joogaa dalka Mexico waxaan duubaynaa videogano aan ku duubaynaa Cenote hadhow aan macnaheedu doona videoga like gare share gare comment gare subscribe gare These niggas is my time. Took a trip out to Cali to hang with the crew, make a play and get high off that Zaza. I say RP Kobe, a nigga so proud when I ball out, fuck around. waxaan soo yar orday kasoo faa'iidaystay ilaa 5 minutes ma badna in 5 minutes kadib aan soo ordaya waatan meeshii waxaa la yidhaahdaa Cenote taka biyaha halkani waa god samaysmay kumanaan sano ka hor haatanna waxaa ka buuxa biyo cad oo nadiif ah maanta waxaan idin tusayaa waxaydaan hore u arag maaha xeeb maaha badweyn balse waa nooc gebi ahaanba ka wada duwan dalkan Mexico waxyaabaha ay ku caan tahay waxaa ka mid ah Cenote ama god ay biyo ka buuxaan meesha saaxiibkay imika ninka halkaa jooga wuxuu ii sheegay haddii aanu calankaagu meesha ku jirin buuli laguma ogola in aad meesha timaado marka qof kastoo calankaaga ka dhex raadsado haddaba saad u arkaysaan meesha wataa iga dambaysa receptionkii halkaas waa receptionkii and receptionka dabadeed weeyaan halka la maraya ee lagu soo dabaalanaya halkan waa parkingkii halkaas waa halkii lagu bedelinayay showerkii iyo aan meelihii suuliyada intan waxay ka dambeeyeen waxa weeyaan meelihii aan alaabta laga iibsanay basically like a souvenir qofka hadduu doonayo souvenir inuu sii qaato markuu ka sii baxayo marka meesha waa dee lagu shaqaysanayaa meesha waxa weeyaan business caalami ah ka socda waa kuwan marka su-aasha ugu muhiimsan ee isweydiinaya waxa weeyaan why ay horta dhaqankoodu san u yahay dhaqankoodu iyagu qolada Mexicaanka waxay ka soo jeedaan qolo la yiraahdo Mayan culture waxa weeyaan dad weligood iyo la hudba dhaqamadan iyo sanabyadan weligood caabudi jiray haddaba qiimaha meesha lagu geliyo waa imisa 350 peso weeyaan oo dhiganta $12 ama $18 Canadian mar alla markaad lacagta soo bixiso waxa kugu xiga horta inaad soo meedhato oo aad horta jirkaaga soo meedhato waxa ku xiga deetana inaad life jacket ka doorato kee doonaysa inaad xidhato ama kee ku leeg intaa wixii ka dambeeya diyaar baad u tahay haddaba inaad u dhaadhacdo Cenote waana ka dhaadhacaynaa godkaas la dhaadhacay haddaba meeshan marka la imanayo horta laba siyaabood baa loo imaadaa inaad adu iska iskeento oo lacagtaan soo bixiyo 350 peso aad soo bixiso aad meesha soo gasho 3 saacadood 4 saacadood ilaa laga xirayo 5 barka waad joogaysaa waqtigaagan waad ku qaadanaysaa dadkan kale iyagu meesha jooga waxay la socdaan tour ama group dhan bay wada socdaan waxay ka imanayaan magaalooyinka kale sidii u soo booqdaan meelahan
40 daqiiqo 30 daqiiqo ayay biyaha ku jiraan deetana way ka baxayaan dadkaasi marka saad u arkaysaan inta videogu socoto dhan mar waxaad arkaysaa dadka ku badan marna waxaad arkaysaa dadka ku yar life jacketkaas aad xidhnaanaysaa life jacketkaasina wuxuu kaa caawinayaa dadka aan maaragtay maadaama biyuhu dhib yihiin dadka aan adigu quusin ayaa wanaagsan inaad xidhnaato life jacket markaan ku leeyahay biyuhu waa nadiif waxaan uga jeedaa saad u arkaysaan gacantayda halkaas laga arkaya lugahayga waad arkaysaa dhagaxaanta xitaa ka hooseeya aan ku taaganahay si wanaagsan baad u arkaysaa waxa weeyaan waa cave waxa weeyaan meel dhulka hoostiisa ka samaysmay meesha waxaa ka buuxa fiidmeer baa ka buuxa biyahan aad arkaysaan ilaa dhagaxii baa la arkaya but at the same time kalluun baa ku nool xayawaan kala ku nool laakiin waxa weeyaan meelaha ugu waaweyn dadku ba ku dabaashaan bay kamid tahay halkan ma ka boodaa talo halkan haddaan ka boodo maxaa dhacaya cid baa inoo diidan haddaan halkan ka boodo ii qabo mikrofoonka aan ka boodayay inay ku dhamaateen bad moodaysa round 2 waa soo bilaabatay hadda waxaan soo qaatay equipmentkii snorkeling biyaha hoostiisaan galaya oo baashan waxaa loogu talagalay in biyaha hoostiisa aad ku neefsato laakiin biyaha ma wada galaysid waxa weeyaan afkumaad ka neefsanaysaa deetana bahashaa dheer tubkaa dheer unbaad ka neefsanaysaa marka waxaan doonaya haddana imika inaan ku noqdo meeshuu ninku wuxuu igula dardaarmay uu yiri ilow meesha inaad hoostiisa soo eegtaa bal hadda dhulkaa eega bal intaa waxaad moodaysaa in waa deep ilaa hoos 30 feet baa loo dhaadhacaya biyuhu hoos iyo wax ka badanba halka aad arkaysaan waa laga wareegaa halkaa shisha waa laga wareegayaa oo saasa loo soo wareegaya waxaad ka soo baxaysaa dhankan kale halkaas laga soo baxaya haddaba bahashan waa equipmentka lagu snorkel kareeyo waxaa loo xidhanayaa horta marka koowaad waa tan goggleska amba indhihii waa kuwan aad xidhanaysay baashan oo baasha lagu neefsanayso baashan la tusi doonaa soo yadhaadha halkan marna biyaha hoostiisaan ku tusi doonaa marna halkan again horta marka koowaad waad xidhanaysaa okay wuxuu awdayaa ilaa sankaaga saasaad u xidhanaysaa marka koowaad aad xidhatide maxaa soo raacay haddaba xaggeed ka neefsanayso haddaanaad sanka ka neefsanin waxaad ka neefsanaysaa halkan bahashan aad qaniinaysa okay marka qaniinto saasaad u qaniinaysaa bahasha afka deetana kuu gelaya deetana waxaad eegaysaa waxaad tusaya bal hadda neeftii soo dhawo weliba soo dhawo out eeg halkaas ka soo baxaysa neefteedii haddaba qaadashadii baa hadhay xagaan ka qaadanaya halkan marka madaxa lama wada gelayo ilaa biyaha waxaan gaadhsiinaya ilaa halkaas sare aniguna baashana qaniinaya ilaa halkaas sare waxaan sameynaya waan neefsanaya haddaba kaale biyaha hoostiisa haddana tusay masuudi waxay dhacdeen okay saan idiin sheegay afkaad markasta ka neefsanaysaa sanku wuu xidhan yahay imika baashanaa ku xidhan sanka okay saad arkaysaa sankaygii laakiin bes sankayga marka wuu xidhan yahay bis afkaan ka neefsanaya imika laga bilaabo okay now biyaha hoostiisa galaya ina waan tusaya bal hadda sidii tahay
Adi tusa siday tahay bal hada. Now it's safety. Sidii baan biyaha iyo dhaxgalaya. Again, halkaasaan ka neefsanaya intaan doonada biyaha ku jira laakiin ma buusayo lama baahnayn buuso la dhaca so marka la fadhiyo there we go intaan doonada ku jira biyaha marka that's snorkeling ilaa halkaasaan gaadhay tusaya ila socda inta badan marka dadku ma arkayaan biyaha hoostiisa waan idin sheegay 30 feet ayaa loo dhaadhacaya marka meeshu had intan hore waa wada dhagaxaan laakiin inta area-da dambe marka gaadho ayaa dadkana arkaysaa aan sida ay dhaadhac u tahay marka inta badan baashan marka la isticmaalayo cilada ugu weyn waxa weeyaan inagu waxaan u baranay inaan sanka ka neefsano laakiin afku baa afar laata ka sacad soo saan u socday uma sanka kulba ka yar neefsanaya kulba si iloobiya sankan ka yar neefsanaya laakiin waxa weeyaan markaas baasha isticmaalaysa markaas waa inaad afku ka neefsataa sankaagu saan idin sheegay wuu xiran yahay ilaa halka that means marka afku baa loo baahan inaad ka neefsato anyways waynu la socon doonaa dibaddan u bixi doonaa again waynu ku noqon uma malaynaya meeshan aan ka dhamaan doonaa 3 ku yaraan 600 oo sanootay baa ku yaala gobolkan aan joogno Mexico-na hadalkeeda wada milyan baad ka helaysaa dhammaantoodna waa wada sidan waa wada deep biyaha saa wada fadhiya dhammaantood saad u arkaysaan biyuhu waa crystal clear caadi baa loo arkaya wixii ka hooseeya dhagaxii halkaasaad ka arkaysaa marka dhagaxan weyn way kuu muuqataa halkan dhagaxyadii waaweynaa kale waa kuwaas laakiin halkaa midmadow aad arkayso waa deep end qolada aad arkayso toosh bay isticmaalayaan iyagu because tan u isticmaalaya tan iyo toosh bay isticmaalaya marka okay toosh buu isticmaalaya and snorkeling buu sameynaya dadna biyaha hoostiisu galaya halka waa laga wareegaa halka meel yaro laga wareegay leedahay oo soo wareegaysa dadna waxaad ka soo baxaysaa dhanka kale laga soo baxaya dhanka kale ayaad ka soo baxaysaa marka any place aad aragto madow waxa weeyaan waa deep end waad arkay dhagaxaantu halkay ka imanayaan halkay ka soo galayaan bal dhagaxaantan say u socdaan bal ka waranay bal abuurka Ilaahay baleeg waxaan aad arkaysaa iminku waa jirad geed weeyaan geedka jiradiisa weeyaan ayaa ilaa halka u soo dhaadhacaya waka ilaa biyuhu dhagaxu galay and ilaa biyuhu ku sii socda waxaan waa jirad geedka rootkiisa weeyaan saad arkaysaan rootkaas geedkana balon soo heli doonaa balku ku yaalaba kaaliftirkiisa sugna waa geed kale kani waa geed kale waxaan waa rootski geedaha mar haddaan alaabta ka dhamaysan muhiimadda waxa weyn inaan alaabta celino aan meelihii lagu celinayaan sii mari doonaa wallahi way iga dhantay aad baan u daalanahay meesha lagu soo gaajooda aniga aad baan u gaajoonayaa markii aan idin sheegayn lahaa dhirtii jiridda kuwana ka mid ah dhirtan waaweyn aad arkaysaan jiridoodii waa ilaa iyo dhulka waasa tagtay ilaa hoosta ku jirtay marka kale intaasi so
again taasay naga egtay Cenote Takbiha baa la yidhahdaa Cenote Takbiha waxay ku taallaa magaalada Tulum ee Mexico marka qaar kalena waan soo wadi doonaa sayna u socday video like kare share kare comment kare subscribe kare